maxkamadda gobolka Maroodi Jeex ayaa waran ay soo saartay waxa ay albaabada ugu laabtay xarunta wargeyska madaxa bannaan ee Hubaal oo ka soo baxa magaalada Hargeysa waxaana dhammaan ku wargelisay madbacadaha in aan laga daabici karin wargeyskaasi waxaana go'aankaasi ay soo saartay maxkamadda gobolku si ba'an uga biyadiiday xisbiga mucaaradka ah ee wadani oo ku tilmaamay in ay tahay abuurin lagu hayo saxaafadda madaxa bannaan iyo xoriyatul qowlka xogayaha warfaafinta ee xisbiga wadani Maxamed Dirir oo warbaahinta kula hadlay xarunta dhexe xisbigaasi ayaa xukuumadda uga digay inay ka waantowdo go'aanada ay ku abuurinayso saxaafadda xayiraadda lagu soo rogay wargeyska Hubaal shalay iyo caburinta mudooyinkii u dambeeyay ay xukuumadda madaxweyne Axmed Silaanyi hogaamiyay ay ku hayso saxaafaddii madaxa bannaaneed ee dalka iyadoo la ogsoonaa in weerar qaawan lagu qaaday wargeyska Hubaal oo ay weerareen xubno labisan ciidanka booliska Somaliland isla markaana ay qabteen qaar ka mid ah xubnihii weerarka fuliyay oo gacanta looga geliyay xukuumadda isla markaana aan waxba laga qaban maxkamad aan la horkeenin sharci aan la horkeenin oo ay xukuumaddu ka gaabsatay ama ay ka gaabisay inay wax ka qabato arrintaas iyagoo wargeyska Hubaal dhibanayaal u ah weerarkii loo geystay ee dhaawaca iyo isku dayga dilba ahaa ayaa haddana xayiraad lagu soo rogay ay u muuqato inay xukuumaddu daah ku saarayso oo ay ku qarinayso dhibaatadii iyo weerarkii wargeyska Hubaal hore loogu geystay waxa muuqata in xukuumadda madaxweyne Axmed Silaanyi ay doonayso inay dhagaha qabato shacabka Somaliland oo aanu dadku waxba maqal oo ay doonayso inay meesha ka saarto madaxbannaanidii iyo xorriyaddii saxaafadda madaxa bannaan taas oo ay u adeegsanayso awoodda dawladnimo iyada oo maalinba wargeys albaabada loo laabayo iyada oo ay ku soo kordheen weeraro cadaan ah oo loo geysanayo saxaafadda madaxa bannaan waxaanu leenahay shalay madaxweynuhu markii uu mucaaradka ahaa xisbiga kulmiye isaga ayaa ku ololeyn jiray madax bannaanida saxaafadda waxaanu aaminsanahay madaxweynuhu talada muu qabteen haddii aanu haysanin saxaafad madax bannaan iyo xorriyatul qowl rasmi ah oo Somaliland ka jira waxaanu aaminsanahay xorriyadda saxaafadda iyo madax bannaanidoodu inay tahay muqaddas Somaliland ay muhiim u tahay inay madax bannaanaato saxaafaddu wargeyska Hubaal iyagoo dhibanayaal u ah shalay dhibaatadii gaadhay maantana in albaabada loo laabaa waxay u muuqanaysaa inay xukuumaddu daah saarayso dhacdadii wargeyska Hubaal ku dhacday waxaanu leenahay sharcigu kii qaban waayay wargeyska Hubaal cidii weerartay ee maxkamad horkeedi waayay hadduu yahay maanta inuu wargeyska Hubaal albaabada u laabo waxa muuqanaysa inuu sharcigu cid gaar ah u shaqeeyo oo awood gaar ah uu ku shaqeeyo mar walba waa taageersanahay saxaafaddu inay ilaaliso anshaxa iyo qarannimada iyo wanaagga dalkani leeyahay balse marnaba taageeri mayno xukuumaddana ka yeeli mayno inay tiraahdo lama hadli karo oo waxba lama maqli karo oo waxba lama fikir lama dhiiban karo inay tiraahdo si kastaba ha ahaatee xayiraaddan la saaray wargeyska madaxa bannaan ee Hubaal ayaa ku soo beegmaysa xilli maamulka sare ee wargeyskaasi uu dalbanayo inay xukuumaddu go'aan cad ka soo saarto weerarkii hubaysnaa ee lagu qaaday wargeyska Hubaal kaasi oo lagu dhaawacay mariyaha wargeyskaasi Mukhtaar Ismaaciil Cali Somsa TV Hargeysa.